waxaa la weydiiyey ninkii la dhihi jiray suldaanu zaahidiin ibraahim ibni adham radiallahu canhu. ibraahim ibni adham raggii salafka ayay wanaagsanaa buu ka mid ahaa, raggii ehlu zuhdiga ahaa ee adduunyada ka tegey oo ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala u go'ay ayuu ka mid ahaa. maalin maalmaha ka mid a ayay jamaaco su'aaleenoo waxay yidhaahdeen uusiinaa bimaa yanfacunaa, bal wax ilaahay nagu anfaco oo khayra noo dardaaran ibraahim bin adhamow. faqaala wuxuu yidhi radia allahu canhu idaa ra'aytum innaasa mashquuliina biamri dunyaa faاshtaqiluu antum biamri alaakhira. haddii aad aragtaan dadku ayagoo isku mashquulinayo umuurta adduunyada, inay xoolo helaan bay doonayaan, inay madax noqdaan bay doonayaan, yacni wax alla wixii adduunyada oo quruxdeeda oo ziinadeeda ah unbay jecel yihiin oo isku mashquulinayaan. daaro dheer inay dhistaan bay rabaan, beero waaweyn inay yeeshaan bay rabaan, baabuur fara badan iyo diyaaraday doonayaan. haddii aad aragtaan dadku inay adduunya isku mashquulinayaan faاshtaqiluu antum biamri alaakhira, aakhira amarkeeda isku mashquuliya. hal adduunya waa faaniyo oo wax laga tegahayo weeyahe, aakhiradii yaysa idin dhaafin, midda lagu baaqi ahaanayo weligeed aan laga dhibanaynin waa aakhiro. waida ishtaqaluu bitasyiini dawaahirihim faاshtaqiluu antum bitasyiini bawaadinikum. haddii aad aragtaan dadku inay isku mashquulinayaan daahirkooda inay qurxiyaan, labis wanaagsan inay qaataan, haybad iyo yacni qurux badanka inay yeeshaan ay rabaan, adinku waxaa isku mashquulisaan baatinkiina saad u wanaajin lahaydeen. daahirkan quruxda badan waxba ma tarayo haddii mar yacni caqiidadaadii iyo yaqiintaadii iyo tawakulkaagii iyo waxaagii hadday hallaysan yihiin oo qalbigaaga iimaan fiican baan ku jiray yaqiinna aada lahayn, bidhaantan quruxda badan wax ma tarayso. maxalli nadrillaahi alqalb, meesha ilaahay addoonka uu ka eegayo waa qalbiga wey. ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa jamaalikum, ilaahay ma fiirinayo suuradiinna iyo quruxdiinna, walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. saasuu nabigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam. ilaahay daahirkiina waxba kama eegayo. maxallu nadrillaahi alqalb, meesha ilaahay oo addoonka ka daalacanayo oo uu ka fiirinayo waa qalbiga. marka qalbiga wanaajiso, baatinkaagu ha wanaagsanaado. nabiga calayhi salaatu wasalaam dacooyinkiisa waxaa ka mid ahaa ilaahayow ka yeel sirtayda mid ka khayr badan calaaniyadayda wey. ya waxa aad muujinayso dadka u muujinayso waxaa la doonayaa waxa kuu qarsoon oo baatinkaaga inuu ka wanaagsan yahay baa la doonaya. maxaa yeel acmaashan daahirka ah waxaaba laga yaabaa istutus iyo waxaas iyo waxaan fiicnayn inuu ku jiro wey. baatinkaagu inuu wanaagsanaadaa la doonaya, baatinkaagu inuu wanaagsanaado. marka hadday dadku daahirkooda qurxiyaan oy bidhaantoodan kore quruxsan tahay, adinku waxaad qurxisaan buu leeyahay bitasyiina bawaadinakum. iyo dhaadheer oo filooyina iyo daaro dhaadheer buu rabaa dabaqyo inuu dhisto. faاshtaqiluu bicimaarati alqubuur, qabriga inaad camirtaan kaa isku mashquuliyo wey. maxaa yeelay guriga rasmiga ah oo marnaba aan ku hurayna waa qabriga wey. qabrigana wixii aad soo camal fasho unbaad ka helaysaa wey. alqabru imaa rawda min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari innaar. qabrigu wuxuu noqonayaa beer beeraha janno ka mid a ama godgodadka naarta ka mida wey. waa siduu camalkiisu ahaa un qofku, camalkiisu sida uu ahaa un wey. marka ka fikir qabrigaaga saad ku dhisi lahayd. camal wanaagsan baa la doonaya qabriga inaad ku dhisto. qofkii adduunyada dadaalo oo waddada wanaagsan ku dadaalo, mutaabacada nebiga ku dadaalo calayhi salaatu wasalaam, qabrigiisa wax wanaagsan buu ugu tegayaa, qabri qurux badan buu u tegaya. waida ishtaqaluu bicuyuubi innaas, dadka ceebahooda hadday isku mashquuliyaan dadku, waa sida dadku loo badan yahay in dadka wax laga sheego oo qofku qofka kale wax ka sheego, ceebta dadka unuu arkayo. faاshtaqiluu, adinku waxaad ku mashquushaan bicuyuubi anfusikum, naftiinna ceebteeda ku mashquulow. ceebaha dadka lagu weydiin maayo adiga hadhow, laakiin ceebtaadaa lagu warsanaya. adigu iswanaajiyo istoosi, ceebaha adigu aad leedahay taas ka fikir oo ka murugo, sida aad ku baabi'in lahayd oo ku zuulin lahayd, akhlaaqda wanaagsan aad ugu sifoobi lahayd, akhlaaqda xunxunkaana aad uga dheeraan lahayd, adigu ku dadaal. haba ceebaha dadkaa isku mashquulino. waxaa yacni liibaanay baa layidhi ninkii ceebtiisa ku mashquulo oo dadka ceebtooda uga mashquulo, qofkaasaa liibaanay. waxaa halaagsamay oo halaag ku dhacay dadka ceebtooda oo ninka arkayo ceebihiisana asaga hilmaamay oo waxba iska ogeyn asaga. imaamu shaafici ashcaartiisi waxaa ka mid ahaa lisaanuka laa tadkur bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunun.
carabkaaga marnaba ha ku sheegin ruux bini aadama ceebtiisa iyo cawradiisa fa kulluka cawraat adiga dhammaantaad ceeb socotaa tahay adiga dhammaantaa ceeb socotaa tahay walinaasi alsunun dadkuna carab bay leeyihiin haddaad dadka ceebahooda sheegto dadka dacaayadayso oo xumaantooda una aad raadiso adigana ceebtaada bannaankaa unbaa lagu hayaa hel adigaba ceeb baad leedahay dadkuna carab bay leeyihiin waida ishtaqaluu bikhidmati almakhluuqiin dadka khidmadooda hadday isku mashquuliyaan dadku qofba qof buu u shaqaynayaa ninkii faqiirkaa nin taajir u shaqaynaya kii madaxda waa loo shaqaynaya waa la daba ordayaa bini aadam khidmadiisa hadday isku mashquuliyaan fashtaqiluu bikhidmati rabbi alcaalamiin adinku waxaad ku mashquulshaan oo isku shuqlisaan bikhidmati rabbi alcaalamiin ilaahay khidmadiisa ku dadaal ilaahay u khidmay adugu markaasaad wanaagsanaanaysaa watakhiduu yeesha min haadihi dunyaa adduunyadan zaadan yuusilukum ila alaakhira adduunyada waxaad ka samaysataan sahay iyo zaad idin gaarsiinayso aakhiro idin gaarsiinayso fa inama addunyaa adduunyadu masracatu alaakhira aakhiro beerteedii wey wasiyadiisii iyo dardaarankiisii ibraahim binu adham suldaanu zaahidiin ninkii la odhan jiray wuxuu ku soo dhammeeyey watakhiduu min haadihi addunyaa zaadan yuusilukum ila alaakhira adduunyada intaad joogtaan oo nooshihiin maalmaha yare adduunyada aad joogtaan waxaad samaysataan zaad idin gaarsiinayo aakhiro fa inama adunyaa adduunyadu masracatu alaakhira aakhiro masracadeedii wey wax alla wixii adduunyada aad beerato unbaad aakhiro goosanaysaa hadhow marka wax wanaagsan ku dadaal zaadka iyo sahaydu iyo idinku yaraanin zaadka iyo sahaydu yaysan idinku yaraanin sidaasuu leeyahay siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni xadiidkii aanu soo maraynay abu dar alkafaari siduu nabigu ugu dardaarmay wastaksiri zaada fa ina safara dawiil buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war zaadka badso sahaydu yayna kugu yaraanin camalka saalixa badso fa ina safara dawiil safarka kaa dambeeya aad buu u dheer yahay wey hadhow qiyaamaha markii la tago haddii camalku kugu yaraado sahaydu kugu yaraato waa ayaan darro waad kurboonaysaa hadhow marka inaad zaadka badsato kaasaa la doonaya